صدن إيكوسن جيركا رير برازيل كاشاميرو حدق قد كدحي مانشستر أياه هوغانكا عيارته وديبي أوه فار أيا فيرنا يا معقول أهنشه أوفسايد أوفسايد أيا فيرنا يا معقول أهنشه أوفسايد أيا قيمين يا هدي أوفسايد أي تاي هدي كلبا ولا غيابا إنه أوفسايد تاي أوفسايد إنه تاي أيا معقولة أوفسايد إنه تاي أيا معقولة جول كاسي كاشاميرو هدي لديدو وحي الدبال دقها أو والو جرا إنك صدق شرعي لقى في عيني مايل أيو كجرا دور مايل كاشاميرو كرسورك عيارتا أيا جوان جاري دونا أو أونسايد جول واي ولا أنسحية جولكا ولا أنسحية ديفيد ديجيا يحرتي سوي دبال دقيان كاشاميرو أيا هوغانكا عيارتا وديبي كوحديسا جولي إبر كوحدة كوبا عقتها إن نيوكاسل يونايتد أيا لقول لي هاي Manchester United supporters certainly are. But just when they had their biggest scare, forward they go. Rashford fell. Shaw's delivery, perfection. And Casemiro attacking it with vigor and heading it. صدني أفر دقيقة أي مريسة عيارتا كاشاميرو كوبا سوى مدحي لوك شو سوق هذا برونا كشقي راشفورد أيا سقلت كاسل لقو قلي كفبرايو لبكون يسدح إلى باتن كارلين كاب كفينال كيسة يصفشدي سي ugu ee kooxda kubadda cagta ee Newcastle kubaddaas way baxday waa fura gacan kooxda Newcastle Marcus Rashford hal shoot oo on target ka badan ayuu sameeyay Bruno hal shoot oo on target ka badan 90 minute oo labada kooxood labadooduba ay dheeleen waa kuwana Newcastle Chelsea hal gool kaliya dhaliyeen 6 shoot oo Premier League ay sameeyeen Chelsea waxay ku fashilmeen inay badiyaan 8 kulan ugu dambeysay ee Premier League waa waqtigii ugu dheeraa kulan aweeya sida ku dhacdo kooxda intii u dhaxaysay Abriil 2000 ilaa Abriil 2001 laba ciyaarto ay 20 gool ka badan dhalisay 9 season waa Lewandowski iyo Harry Kane waa kuwana Newcastle Chelsea 10 kulan oo awee ay guulaysan la yihiin 3 barbar ay galeen 6na waa la garaacay guushii ugu horreysay ayay Tottenham ka gaartay Chelsea garoonka Tottenham Hotspur Stadium 2018 ayaa ugu dambeysay Tottenham oo Chelsea ka badisa waana la tumay maanta harakeen 20 gool ka badan ayuu dhalinaya 9 season oo xiriir ah ma jiro ciyaartoy sida sameeya 14 daqiiqo ay maraysa ciyaarta 14 daqiiqo Newcastle iyo sidoo kale Manchester United finalka koobka Carling Cup-ka finalka koobka Carling Cup-ka ama Carabao Cup sidaad u taqaano ama EVL Cup waa kan Kieran Trippier Almiron xidigareer Uruguay waa laga qaatay Luke Shaw waa kan ciyaaryahan Casemiro wuxuu siiyay Bruno Fernandes iyo Rashford labadooduba way isfahmeen garoonka gudihiisa waa kan Casemiro cross fiican oo u qaaday Anthony saddex ciyaartoy oo reer Brazil ayaa u dheelaya Manchester waa kuwana mar kale banaanka la soo dhigay ku taaba ay ahayd kubaddaasi halis ayaa la geliyay ciyaaryahan Weghorst kubadda ninkan way isaga dhacaysaa ninkan kubadda way isaga dhacaysaa natiijooyinkii ka soo baxay dhammaan kulamada horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaan idiin dulmari doonaa Chelsea 2-0 lagu garaacay Tottenham Celta Vigo 3-0 Valladolid ay ku garaaceen iyagana Inter Milan guul darro soo gaartay maanta Bologna 1-0 ku garaacday Salernitana 3-0 ay ku garaacday Monza Jarmalka Bayer Leverkusen iyo Freiburg eber ay galeen Olympique Lyon laftigeeda shalay dheelayeen iyagu Marseille iyo Paris caawa weeyaan aad iyo aad waxaad muddaa San Maxim inuu aad u dhibayo kooxda kubadda cagta ee Manchester aad ayuu u dhibayaa energy badan oo haya iyo sidoo kalena waqti fara badan Digeya kubadda wuu iska soo fogeeyay waa ka mar kale Rashford
ماركوس راشفورد kubaddaas halis ayay ahayd waa kan antony laakiin golayihii kubadda gacanta u gashay waa kan Kieran Trippier isbitaalka sayf ayaana u taabagelinaya kulanka ka